1959 oo ku hoos jirta maamulkii wasaayada ama dardaaranka qaramada midoobay oo ay madax ka ahayd Italiya ayaa markii ugu horeysay dhulkii Soomaaliyeed ee Talyaanigu haystay ama Italian Somaliland waxaa ka dhacday doorashada xubnaha golaha shacabka. doorashadaas waxaa maamulayay maamulkii Talyaaniga ee Soomaaliya oo loo yiqiin AFIS waxaana lagu dhaqay habsocodka doorashooyinkaas xeer lambar 26 oo soo baxay lana faafiyay 12 Diseembar 1958. golaha xeer dejinta ee ku soo baxay doorashooyinkaasi waxa uu ka koobnaa 90 kursi waxaana codbixinta doorashooyinkaas ka qayb galay 313,760 codbixiye kuwaas oo isugu jiray rag iyo dumar gaaray da'ada 18 jirka. maadaama waddanku isu diyaarinaya nidaamka xisbiyada badan doorashada xubnaha baarlamaanka waxaa ku tartamay xisbiyadii siyaasadeed ee xilligaas ka jiray Italian Somaliland sida Somali Youth League SYL, Somali Independent Constitutional Party ama xisbiya dastuur mustaqil iyo Liberal Somali Youth Party. ha yeeshee labada dambe waxa ay qaadaceen ka qaybgalka doorashada balse natiijadii doorashadu waxa ay noqotay in xisbiga SYL helay 237,134 cod oo u dhigantay 83 kursi halka xisbiga Somali Independent Constitutional Party uu helay 40,857 cod oo u dhigantay 5 kursi iyada oo xisbiga Liberal Somali Youth Party uu helay 35,769 cod taas oo u dhigantay 2 kursi. golihii xeer dejintuna waxa uu gudoomiye u doortay Allah u naxariistay Aadan Cabdulla Cusmaan. February 1960 British Somaliland ama dhulkii Soomaaliyeed ee Ingiriisku haystay waxa isna ka dhacay doorashooyinkii golaha xeer dejinta waxaa lagu maamulay doorashooyinkaas xeer lambar 9 oo soo baxay 1958 iyo wax ka bedelkii goluhu ku sameeyay xeer lambar 8 oo soo baxay 1959. golahaas xeer dejinta ee ku soo baxay doorashooyinkaasi waxa uu ka koobnaa 33 kursi waxaana codbixinta doorashadaas ka qayb galay 81,366 codbixiye kuwaas oo dhammaantood rag ahaa iyada oo doorashadaas laga reebay in haweenku codeeyaan. xisbiyadii ku tartamay doorashada golaha xeer dejinta ee British Somaliland horaantii 1960 waxa ugu horeeyay 4 xisbi oo kala ahaa Somali National League SNL oo helay 20 kursi, United Somali Party oo helay 12 kursi iyo National United Front oo helay 1 kursi iyo Somali Youth League SYL oo helay 4,626 cod. ha yeeshee aan kursi ka helin baarlamaanka. Somaliland waxa ay gaartay madax banaani buuxda 26 Juun 1960 iyada oo leh baarlamaan iyo xisbiye siyaasadeed kadibna 1 July 1960 British Somaliland iyo Italian Somaliland oo noqday dhul Soomaaliyeed waxa ay sameeyeen Jamhuuriyadda Soomaaliyeed sida uu dhigayo xeer lambar 5 oo soo baxay 31 Janaayo 1961 laguna dhisay Jamhuuriyadda Soomaaliya oo madax bannaan. golihii qaranka ee ugu horeeyay ee Soomaaliya waxa uu ka koobnaa 123 xildhibaan 90 xildhibaan oo ka timid golaha qaranka ee Koonfurta Soomaaliya oo la soo doortay 1959 iyo 33 xildhibaan oo ka timid golihii xeer dejinta ee Somaliland kaas oo la soo doortay horaantii 60kii. sidaasna waxa ku sameysmay baarlamaankii koowaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu ansixiyay dastuurkii 1960kii waxa uuna u diray afti dadweyne. Allah u naxariistay Aadan Cabdulla Cusmaan ayaa baarlamaanku u doortay inuu noqdo madaxweyne ku meel gaar ah muddo hal sano ah. kulanka waxa fadhiyay 115 xildhibaan waxaana codkooda siiyay Aadan Cadde 107 xildhibaan. Aadan Cadde waxa saaciday inuu ahaa musharaxa kali ah ee buuxiyay shardiga dastuuriga ah ee da'ada madaxweynaha waxa uu ahaa xilligaas 45 jir sidaas oo kalena ma jirin musharax kale oo isu taagay xilka madaxweynaha sida ay muujinayaan qoraalada yaal ee ku saabsan aftidii qaran ee loo qaaday dastuurkii 60kii. waxaa ka qayb galay aftida 1,948,348 muwaadin waxa ogolaaday 1,756,216 muwaadin waxaana maya ugu codeeyay 183,000 muwaadin. gobolada waqooyi ama Somaliland iyo gobolka Hiiraan muwaadiniin aad u badan ayaa maya ugu codeeyay dastuurkaas kadib markii ay dhamaatay muddadii xilhaynta gaarsiinta ahayd ee Aadan
aadan cadde waxa ay maxkamadda sare ee waddanku ku dhawaaqday in 6 Julaay 1961 la qabto doorashada madaxweynaha oo muddada xilhayntiisu tahay 6 sano doorashadaas waxa isu sharaxay madaxweynihii ku-meel gaarka ahaa oo ay dhammaatay muddadii xilhayntiisu iyo mudane Sheekh Cali Jimcaale Baraale waxaana fadhiga doorashada madaxweynaha ee baarlamaanka fadhiyey 123 xildhibaan oo ka dhignayd inay xaadireen dhammaan xubnaha baarlamaanku waxa ayna wareegii koowaad Allah u wada naxariistay kala heleen min 60 cod wareegii labaad madaxweyne aadan cadde waxa uu helay 59 cod halka mudane Sheekh Cali Jimcaale uu ka helay 61 cod wareeg saddexaad oo cod dheeri lagu kala baxay ayaa loo baahday markaasna madaxweyne aadan cadde waxa uu helay 62 cod halka mudane Sheekh Cali Jimcaale ka helay 61 cod November 1963 baarlamaankii koowaad ee jamhuuriyaddu waxa uu soo saaray xeer lambar 19 oo soo baxay 14 Agoosto 1963 kaas oo quseeyay maamulka iyo doorashooyinka golayaasha dawladaha hoose ee degmooyinka doorashooyinkaas golayaasha dawladda hoose waxaa ka qayb galay waddanka oo dhan milyan iyo 300 cod bixiye March 1964 waxa waddanka oo dhan ka dhacay doorashooyinkii baarlamaanka waxaana lagu maamulay doorashooyinkaas xeer lambar 4 oo soo baxay 22 January 1964 cod bixinta doorashadaas baarlamaanka waxaa ka qayb galay 914,069 muwaadin xilligaas Ethiopia waxa ay waday siyaasadeeda waalan ee dhulbalaarsiga sidaas awgeed waxa ay dagaalo goosgoosa ka waday magaalooyinka Doolow feerfeer iyo Togwajaale hayeeshee Allah u wada naxariistay madaxweyne aadan Cabdulla Cusmaan iyo Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo golihii wasiiradu waxa ay qaateen go'aan ah inaan doorashada baarlamaanku u baaqan daandaansiga Ethiopia sidaas awgeed waxa ay shaaciyeen in gacan lagu codeeyo gacan lagu dagaalo cabasho iyo eed ku saabsan in ku shubasha dhacday ayaa laga soo diiwaan geliyay goobihii cod bixinta ee Cadale aadan Yabal Laascaanood Hargeysa Caluula Balcad Beledweyne Marka Berbera Boosaaso Gar Adag Qandala Kismaayo Dhuusamareeb Oodweyne isku shuban iyo Wallanweyn maxkamadda sare waxa ay ku dhawaaqday in dhammaan dacwooyinkaasi aysan lahayn cadeymo ku filan sidaas awgeed waxa ay ansixisay natiijadii doorashooyinkaas marka laga reebo degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose oo gudoomiyihii xafiiska doorashooyinka ee degmadaasi ku dhawaaqay in natiijada degmada Marka ay dhammaanteed tahay waxba kama jiraan sidaas daraadeedna loo baahan yahay in lagu celiyo doorashada hayeeshee soo jeedintii gudoomiyaha deegaan doorashada Marka maxkamadda sare ayaa burisay waxa ayna ku koobtay awoodiisa sidii uu qabay xeerka doorashadu oo ahayd inuu saxo tirinta codadka ama uu waxba kama jiraan ka dhigo 300 cod oo lagu murmay kana jira codadkaas lagu murmay tirada codadka xisbiga SYL oo ahaa xisbiga madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa ayna ku amartay in min hal kursi loo ansixiyo xisbiga SDU iyo xisbiga SNC amarkaas 2 maalin gudahood ayaa lagu fuliyay sidaas ayayna mudane Xaaji Maxamed Xuseen oo ka socday xisbiga SDU iyo mudane Xaaji Faarax Cali oo ka socday xisbiga SNC waxa ay ku heleen kuraastoodii kuna fariisteen golaha shacabka sidaasna waxa looga guuleystay musharrixii SYL mudane Cabdullaahi Xaaji Maxamuud Insaaniye 10 Juun 1967 waxaa la qabtay doorashada madaxtooyada kadib markii ay dhammaatay muddadii xilhaynta ee madaxweyne aadan Cabdulla Cusmaan waxaa fadhiyay doorashada madaxweynaha labaad ee jamhuuriyadda dhammaan xubnaha baarlamaanka waxaana ku tartamay madaxweyne aadan Cabdulla Cusmaan iyo ra'iisul wasaarihiisa Cabdirashiid Cali Sharmaake sidaasna waxa uu ra'iisul wasaare Cabdirashiid ku noqday madaxweynaha labaad ee jamhuuriyadda muddada xilhayntiisuna waxa ay ahayd sida dastuurku qabay 6 sano madaxweyne aadan Cabdulla Cusmaan iyada oo muddo ku dhow hal bil ay ka dhiman muddada xilhayntiisa ayuu xilkii qaranka ku wareejiyay madaxweynaha la doortay sidaasna waxa uu aadan Cabdulla Cusmaan ku noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Afrikaan ah ee loo doorto si tala wadaag ah xilkana uga degay sidii lagu soo doortay kadibna si nabad ah xilkii ugu wareejiyay madaxweyne la doortay madaxweynihii labaad ee Afrikaan ah ee sida aadan cadda u dhaqmay waxa uu ahaa gabyaagii weynaa ee Senegal Léopold Sédar Senghor oo madaxweyne ka noqday Senegal kadibna markii ay dhamaatay muddadii xilhayntiisu si nabad ah u wareejiyay xilkii waddanka Senegal Léopold iyo aadan cadde waxa ay dhinteen iyaga oo kor u dhaafay da'ada 90ka isla markaana xushmad iyo karaamo looga hayo wadamadooda madaxweyne Cabdirashiid waxa uu dhisay xukuumad kooban ra'iisul wasaarana waxa uu u doortay Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal 12 sano ka hor geeridii aadan cadde ayaa Yuusuf Garaad Cumar Axmed oo markaas ka shaqeynaya BBC-da waxa uu weydiiyay aadan cadde go'aankii ugu adkaa ee soo maray intii uu hayay xilka waddanka iyo ujeedada uu ka lahaa gelidda siyaasadda waxa uu dhaliyay Soomaali qabiil inay ka baxdo oo isku mid ay noqoto inaan wax ka shaqeeyo ayaa ugu dhaliyay
مدة دلوقتي سووريكتي مركا يعني وح الله وح يجهر يمد ويعني أما عن كفر أما يعني عن مدور كان وضع ما حسوسته حقيقة ده ولكن يعني دلال بان هي أسوأ روح عن قرطي أنا كل يسير بقول يا فرت بشي فبراير يا قرطي وعن قرطي أرتي صومالي نينكا أباي هو يدلين هي نينكا هاي بيقول شيء إنه سكوي مديه مركا عدالة داس iyo qabiil diidaas yani anu SYL ku qortay waxaan qoray anu yani balweyno inaan qortaan uga soo tagay oo xamar ka qorto Abdullah Ciise asaguna ii soo qor Abdullah baan ka dhigay numbarkii 29 anu numbarkii 37 baan noqday marka hadee anigu waa shaqeeyay intii sida waa shaqeeyay Ilaahay waa iga sareeyay laakiin wax ma gooni aan lahayn oo ahayn yani Soomaali in isku mid noqoto ku dadaal oo contribuere waxaan ma jirin doorashadii saddexaad ee baarlamaanku waxa ay qabsoontay Maaj 1969 waana markii koowaad ee isku mar la qabtay doorashooyinka baarlamaanka iyo dawladaha hoose doorashooyinkaas waxa lagu maamulay xeer lambar 13 oo soo baxay Juun 1968 waxa ayna ahaayeen doorashooyinkii ugu dambeeyay ee dadweynuhu soo doortay wakiiladiisa awoodda ee ka dhaca jamhuuriyadda 7 bil kadib doorashooyinkii baarlamaanka iyo dawladaha hoose Allah u wada naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo gudoomiyihii baarlamaanka Sheekh Mukhtaar Maxamed Xuseen waxa ay booqasho ugu baxeen gobolada waqooyi waxa ay 15 Oktoobar 1969 tageen magaalada Laascaanood oo xarun u ah gobolka Sool halka ra'iisul wasaare Cigaalna uu booqasho ku joogay Mareykanka hayeeshee Siciid Yuusuf Ismaaciil oo ka tirsanaa ciidanka booliiska lahaana lambarka 4745 kana mid ahaa ilaalada madaxweynaha ayaa toogtay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake 6 maalin kadibna wadanku waxa uu galay xukun military markii dambana kacaanku waxa uu soo saaray nidaam ku dhisan hal xisbi siyaasadeed oo aan lahayn xisbi la tartama hayeeshee Allah u naxariistay jaalasiyaad waxa uu meel fagaare ah ka sheegay in ciidanku afgambiyay dawlad rayid ah oo shacabku soo doortay waxa weeye marka ay joogto aynagu waxaynu nahay revolutionary waxayna u fiican tahay runta in la isku sheego iyo ku fiican revolutionary kanu waa aynu xusuusanahay ma aha mid aynu ciyaar ku galay mana mooganin revolutionary kanu in uu wax la oran jiray constitution lagu sheegi jiray ama dastuur lagu sheegi jiray dabada u gadiyay ma ilowsana baarlamaan dan oo dhisan inuu dabada u gadiyay ma ilowsana madaxda dalka inuu xurimo ilowsana ma ilowsana eed badan inuu qabo marka waxa weeye haddaan soo koobo ma ay dhici karto qof iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 10 iyo 100 iyo 50 iyo 500 iyo wax midna ka maarmi midna ay u aabayeen 10 sano ee u dhaxaysay 1970 ilaa 1980 sida ay tahay caadada maamulada kaliitaliska ah wadanku waxa uu sameeyay horumar dhinacyada dhismaha warshadaynta waxbarashada iyo wax soo saarka beeraha hayeeshee maadaama ay siyaasadda iyo ka qaybgalkeedu cabursanaayeen ayna dhaceen dhowr gaboodfal oo waaweyn waxa bilaawday guux dadweyne oo 1983 isu rogay inay curtaan jabhado hubaysan iyo sugaan caraysan kuwaas oo sababay in nabadgelyada wadanku faraha ka baxdo xukunkii ciidanka iyada oo aan jabhaduhu ku heshiin cid bedelaysa ayuu dhacay 1991 magaalada Djibouti waxa ka dhacay kulan nabad raadin iyo dabaqabashada dawladnimada Soomaaliya ku saabsan kaas oo ay ka qayb galeen siyaasiyiin iyo cuqaal Soomaali ah waxaana xilka madaxweynaha si ku meel gaar ah loogu doortay madaxweyne Cali Mahdi Maxamed heshiis la'aan siyaasadeed iyo caasimadda oo ay ka dhaceen dagaalo qaraar awgeed xukuumaddii madaxweyne Cali Mahdi Maxamed uma suuro gelin inay xaqiijiso xasilinta wadanka iyo furidda wadahadal siyaasadeed xukuumaddiisuna ma aanay helin taageero iyo aqoonsi caalami ah sidaas awgeed wadankii oo dhan waxa uu galay jahawareer siyaasadeed iyo dagaalo qabiil 9 sano kadib 20 Agoosto 2000 kulama socday muddo ku dhow 2 sano oo ka dhacay magaalada Carta ee Jamhuuriyadda Djibouti waxa suura gashay dhismaha baarlamaanka kooban 245 kursi oo ay soo xuleen odayaasha dhaqanka iyo doorashada madaxweyne ku meel gaar ah dawladdaas ku meel gaarka ah waxa ay heshay aqoonsi caalami ah inkasta oo wadamada dariska ah sida Itoobiya ay si walba u diiday dhismaha iyo aqoonsiga dawlad Soomaaliyeed oo aan ku iman shuruudda iyo rabitaanka Itoobiya ciidana uma maqna ceelna uma qodna مسؤولية أنت عليك تي إلهي يروي وحنو بندقني مسؤولية إرك يدولك يبوره مركز سيدين مركز آذنه قاضي إنه كان ظلوما جهولا حد آذنها حسن كم ده
mas-uuliyaddii cirka iyo dhulku diideen abaalgud daraaddeed ayaan idinka codsaday idinkuna waa ii dhiibteen markay halkaa taagan tahay waxaa qaadi kara ama laga rabaa inay qaadaan Soomaali meelay joogtaba qof kasta oo garaad uu mas'uuliyadaas Ilaahay horti iyo shacbiga hortiisa waa saaran tahay aniga kaliya ma saara waxay saaran tahay baarlamaanka aanu dooranay si gaar ah u saaran tahay waxay saaran tahay duubka ina doorto ayagu ina dhalay macal madaxweynaha duubkii dhalay bay saaran tahay waxay saaran tahay haweenka Soomaaliyeed waxay saaran tahay labadii kun oo ergada ahayd bay si gaar ah u saaran tahay waxay saaran tahay ummadda Soomaaliyeed shanta qaaradood meelay joogtaba inay markaan gacantayada ka bixin ee sida ay u hayso بلد يباديبا الله نحاريستي عبد الله ديرو إساق أيا نقضي قدوميها بارلمانكا 26 أغسطو 2000 waxaa la qabtay doorashada madaxweynaha waxaana fadhigaas xaadiray 205 xildhibaan waxaana ku tartamay 16 musharax oo ay kamid ahaayeen madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan musharax Cabdullaahi Axmed Cadow ra'iisul wasaare Cali Khaliif Galayr iyo madaxweyne Cali Mahdi Maxamed ayaa ka tanaasulay u gudbidda wareegga labaad waxaana wareegga labaad ku loolamay Cabdullaahi Axmed Cadow iyo madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan sidaas awgeed Cabdiqaasim oo helay 61 guud ahaan codadkii baarlamaanka ayaa noqday madaxweynaha kumeel gaarka ah ee xukuumadda kumeel gaarka ah iyada oo muddada xilhayntiisuna tahay 4 sano qorshuhuna waxa uu ahaa in wadanku qaato nidaamka federaalka doorashadii shanaad ee madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa ay ka dhacday Kenya sanadkii 2004 waxa la dhisay baarlamaanka kooban 275 xildhibaan Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa noqday gudoomiyaha golaha shacabka waxaana fadhigaas baarlamaanku ku ansixiyay ahdiga kumeel gaarka ah ee dawladda federaalka kumeel gaarka ah halkaasna waxa lagu doortay madaxweyne kumeel gaar ah doorashadaas waxa ku tartamay 26 musharax waxaana codaynta ka qayb galay 275 xildhibaan musharaxiinta waxa kamid ahaa Allah u naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed Cabdullaahi Axmed Cadow الله نحريسته محمد قير أفرح عبد الرحمن جامع برة مدحوينه عبد القاسم سلاد حسن محمد حسن عدو إيا سنتر موسى سودي يلحو مدحوينه عبد الله يوسف أحمد إيا عبد الله أحمد عدو أيا كله لما يوريق لبعض وحانا قوليستي عبد الله يوسف أحمد سقال إيا لباتنكي ديسمبر لبكوني سيديد مدحوينه عبد الله يوسف أحمد أيا حلكي مدحوينها إسكعزلي ولما يالي مروين وحان انتاسل انتهى القبلي Soomaaliya oo xasiloon nabada qarannimadeedii iyo madaxbannaanideedii iyo midnimadeedii la soo noqota ku dhaqmaysa nidaam dimuqraadiya oo doorasho iyo xisbiyo badan ku dhisan hadday ii muuqatay waxaasoo dhan inaydan haatan suurogelayn waxaan go'aansaday xilkii aad ii doorateen 10 Oktoobar 2004 inaan idiin soo celiyo warqadii saxiixay oo sidaas ku qoran tahana hortiina waxaan ugu dhiibayaa gudoomiyaha baarlamaanka waayo dastuur ahaan hadiiba dastuurka in uu la xushmaynayo wuxuu qorayaa madaxweynuhu hadduu sababtu waxay rabtaa noqotee shaqada ka tago xilka kumeel gaar ahaan waxaa la wareegaya gudoomiyaha baarlamaanka waa arrin dastuuriya anigu dastuurka mana jebin haddana ma jebinayo kala leexanaye kadib wadahadal siyaasadeedna baarlamaankii waxa uu noqday 550 kursi 30kii January 2009 baarlamaankii kumeel gaarka ahaa ayaa Djibouti ku qabtay doorashadii lixaad ee madaxweynaha fadhiga doorashada madaxweynaha waxa xaadiray 425 xildhibaan waxaana ku tartamay 14 musharax oo ay kamid ahaayeen madaxweyne Shariif Sheekh Axmed Maslax Maxamed Siyaad Barre iyo ra'iisul wasaare Cali Khaliif Galayr madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa helay 70% codadka baarlamaanka sidaas ayuuna ku noqday madaxweynaha dawladda federaalka kumeel gaarka ah ضبط يدينكم madaxweyne Shariif waxa uu munaasabadaas ka jeediyay
ballanqaad uu ka dhabeeyey oo ahaa in doorashada xigta ee madaxweynuhu ay ka dhici doonto gudaha waddanka. haddaba marka la qiimeeyo 8 madaxweyne oo xilka jamhuuriyadda ku yimid hab doorasho iyo hal madaxweyne oo xoog ku qabsaday awoodda, jamhuuriyadda Soomaaliya ma u socotaa jihada nabadda iyo nidaamka tala wadaagga mise dhaxalkii kacaanka ee ahaa dhageyso oo ku dhaqan waxa uu ku sii jiri doonaa maskaxda siyaasiyiinta.